هذا دمانتين أسكر عيدا dalkayga iyo gebi waan wada salaamaya oo iga go'ay hayd laba arimood ayaan u soo galay oo inaan isdur taago arrin kale oo xasaasiyana waan ka yar hadlayaa walaalayaal reer Jabuuti soo wada dhawaada walaalayaal qabyaalada iyo qudun aan aqoon baan la soo galaya sanadadan dambe waxa la doonayaa inaan kala diro oo qabyaalada la isku keen diro oo ulaha la isku keen dhiibo oo qarmuun kasta iyo qudun kasta oo reer ka dhashayba markuu reeraha caayo ayaa reeraha la doonayaa in la caayo waa isaga iska cish oo caayade maxaad reeraha caayaysan soo wada dhawaada walaalayaal baalka ii sheer garay اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلدمانتين هرتا إنه والبضد بكرة شاطر بوليه هاي وحن مات الله يرح الله يا إن ير أوشان مريرة الله يفكيه كمجرين لكن وحبا إيجا صدق قلي أنت ترى إيجا صدق شيء أيام دون يا دمانتود إنا يوضا مقلان ويرجع سي ريرك عن كذا شيء إنسان الله الله يا يسوينه مجعين واد انتهي ماشي كذا ريرة ماشي مجعيني يكرامات دي الله هيدين يدقني دي أو يدين haddaan dadka ka ceshanayn oo maxaa yiraahdaa ceebta meelaha la soo Facebook ceebtiini ba dhex taale hal la xishoodo nin walba nin daandaan u leeyahay daandaankiisa ha qabsado 40 sakhraan iyo 40 makhnuud iyo 40 ondikaab ee maskaxdooda arkaysaan wada waalan reerka ciise inuu ku wada waalin marka nin la caayo ina reer dhan loo caayo oo reer dhan oo karaamad leh qabiilku doonaba ha noqdo haday canfar tahay haday carab tahay haday Soomaali tahay walaalayaal dadkan ceebta iyo fadeexada la dhex fadhiya Facebookyada ee bilaa damiirka ah ee qabiilada caayaya ee reeraha caayaya suurtu waxaan la hadlayaa maanta reerkii Ciise nin baa maanta xagan soo galay aniga dadka aan ka dhashayna ku aftirsanay ninkaan fariin baan u dirayaa suutiyaayo mid baan ku sheegay in adeer waad khaldantay ka soo maxaa yiraahdaa bolojas bixi Ciise waa wada Ciise nin caarama dheero lixda aqal ee Ciise nin caarama dheero Ciise waa wada Ciise nin caarama dheero reeraha Soomaaliyeedna waa wada sida walaalayaal inaad maxaa yiraahdaa kiina waalan nin walba nin kiisa waalan tol buleeyo tolkiiba u fayo tolkii ha qabsadaan nin kastaba ninka tolkii ha qabsado hadii fariin baan xagan ka diraya reerkii Ciise ugaas buleeyo ganduleey war Ciise waa qastay Facebook 40 xayawaan ee nolosha ka dhacay ee khamriga wada cabaya haday tahay ku holood ku noolo sakhraana haday tahay ninka aan la hadlayo tolkaya horta reerka uu sheegtay ana ku aftirsada reerka Cabdiraxmaan Ceeleeye dulahan muu wada sheegan wuxuu sheegtay reer la yiraahdo cigaal Cabdalle cigaal buu sheegtay reer cigaal buu sheegtay bagurguru sheegtay wariyaa reerka aad sheegatay maxaa la yiraahdaa suutiyaayo nin aad arkayatay nin walba tolkiiba u fayo sakhaarinta reeraha wada caayaya lixda aqal ee Ciise nin caarama dheero mid baan ku daraya arrinka maan doon inaan ka hadlo laakiin wixii meesha yaalaba xaq waa inaan u heliyo wala ku sakhraan oo holan jooga ولا توالن كان دad kan wada waalan ee wada sakhaarinta ay wada makhaaniida ah reeraha caayaya reerahan ma metilaan mana metili karaan Ciise waa reer karaameedaysan oo xeer leh oo dhaqan leh oo kala dambeys leh walaalayaal mid baa idin sheegaya Allahumma salli ala Muhammad in maxaa la yiraahdaa reerka uu ninkaasi sheegtay ana ku aftirsada wariya Cabdalle Gadiid baa la yiraahdaa reerkaas sheegtay Cabdalle Gadiidna ana maanta magacooga ku hadlay Cabdalle Gadiid waa saddex oday oday mid ahaatay wada dhalay laguma dhex dhunto farax male maxaa la yiraahdaa sakhraan male ilma xaraan male garan mayna ee aakhir zamanka wax walba waa la arkay war Cabdalle Gadiid nimanka ku dhex mudhuumanayo ee meeshuu doonaba ha joogsado ee gabdhaha caayaya ee magacayaga doonaya inuu Ciise ku kala kaxeeyo yeeli mayna waan diinta anagu Cabdalle Gadiid baa la isku ka yiraahdaa haday bafur laba tahay haday reer cigaal tahay haday cid saddexda odayba tahay reerku ku aftirsado annaga ka dhalanay bolojas ma ka bixinayna annaga nama matilo ninka reerkayaga afka ku soo dhigay Ciise ayaan anagu ka tirsanahay reerka Ciise nahay Ciise nin walba oo inaga dhashay qoladu doon ha noqdo xaq qabsado oo maxaa la yiraahdaa ceebta dadka kala fariistaan hal la qabsado nin kastaba in iyo kaniimka aan la hadlayo aan dad biigu xigaa sidoo ku aftirsanay reerku ku aftirsanayaan mas'uul kama noqon kare bolojas ma ka bixinaya nin weyn weeye isaguna waxaan u dirayaa in adeer waad khaldantay bolojas ka soo bixi reeraha kalena reeraha ku nimanka ku aftirsanaya ee wada saqajaanka ah ee noloshoodu baabaa tahay ku siimika sakhraan oo holan joogo ku jira meesha anu ma doonayo qofna inaan meeshan ka caayo oo dadka iska caayaya oo noloshiisu baabaato intii uu ka dhashayba ay naceen ninka fadani sabab la yiraahdaa sheegaya ee sakhraanka ah ee maxaa la yiraahdaa 60 jirka ah ee reeraha iyo qabyaalada haduu mid hadlo war dadka in caayay reeraha caayaysan joojiye kaaba doonaya inuu dawladu hadlo dawladna ma hadli kara dawladna ma metilaan qaranna ma metilaan qabiiladana ma metilaan
wadani samsam waa nin sakhraana horoone ma matilo wadani samsam waa nin noloshiisu baaba tahay naagtii uu qabay ayaa ka tagtay waxa uga tagtayna nin darre ninnimay ka weyday waxaan ninnimada laga waayay ee wada khaniisiinta ee wada makhaaniidda ah walaalayaal reeraha ciise ma matelaan nin walba reer buu ka dhashay hadday gada bursi tahay hadday isaaq tahay hadday ciise tahay hadday cafar tahay reeraha dadka caaya iyaka laakiin ha caayina reeraha gada bursi ma caayi kartaan isaaq ma caayi kartaan ciise ma caayi kartaan cidna lama caayi karo ciisena lama kala qaadqaadi karaba ciisena lama kala qaadqaadi karo nin kasta reer buu ka dhashay reer buu leeyahay kan imikada hortiisa wajigiisa aan igu hayo reer buu ka dhashay reerkiisa ma caayi karaa anigu isagaan caayi isagaa edeb daran isagaa bila edeba isagaa quruna isagaa makhnuuda laakiin reer dhan oo sharafaysan oo karaamadaysan waxa afka loogu dhigto ee loo caayo waxa weeye meesha ay ku soo koreen ba edeb darnayd oo wada edeb xoreerahani ciise weynaha aan ka dhashayna mid baan u dirayaa waar ciise wax iskula hadh haddaad sheekh lahayd iyo haddaad shariif lahayd iyo haddaad saaqid lahaydba waar iswada qabta waar saaqidkiinna nin waanan tolkiiba u fayoowe qabsada dadkiinna ma wadani samsama ba wax laga qorayaa ma waxa laga qorayaa aara wax laga qorayaa ma kari kara war boorashaas ka soo wada bixiya ciise siduu u dhan yahay wuxuu soo wada kaxaystay intoodii ugu liidatay ee ugu waanlayd ciisena ma matelaan ciise waa wada ciise nina cara ma dheero labada maxaa la yidhahdaaye lixda aqalee ciise nina nin cara ma dheero walaa reer soo raacana ma jiro dushaana wada saaranaynaa anigu boolojees waxaan ka bixinayaa ninkii tolkay ahaa waanan u dirayaa ka soo bixi boolojees nin kastaba ninkiisa ha qabsado ninka maanta intuu halkaas soo joogsaday cigaal cabdalla sheegtay inaadan anu macariisini anaa u mas-uul cigaal cabdalle waa 3 oday laguma dhex dhunto farxna ma leh sheekh yaa ka dhasho sheekh muuse ka soo jeeda reeraha ay ku aftirsanayaan annagaana qabsanayna kayaga inaguna kiina qabsada wadani samsam muxuu sheegi karaa walaalo kotonjir buu ku soo gaaray bilaa baasaboor bilaa nolol nin waana weeyi waa sakhraan noloshiisu baabaatay waa reerkiisii uu ka dhashay anu leer baa ninkan isku nahay waan xishoonayno waan dhowrayna intaa uu nacaaya waxaan ku dhowrayna dad sharaf lu ka dhashay reer sharaf lu ka dhashay islaan sharaf lu garanayno habareer dhan nooga ah walaalihii oo dhan baan garanaynaa waxaan baan dhowraynay laakiin shakhsi ahaan qofku markuu nasab xun yahay isaga tilmaama wadani nin dhan maaha waa depress uu waalan yahay paranoid schizophrenic wax la yiraahdaa jira uu isku kala jawaabayaa waxa la yiraahdaa Soomaaliga cudurka haya ninka shambacayn baa la yiraahdaa shambacayn ayaan bas weey ayaan dawladdu ku amaani ayaan ministaradu caay ayaan wuxuu caay qabiilada ayaan imika ma toodun ay tameeyeen buu arkay khaldamay qof khaldama laguma horeeyo qof khaldama uguma horeeyo uu khaldami kara qofka bil aadankii borojas ka soo bixina waan oranaynaa laakiin ninka khaldamay reer ma matilo dawladna ma matilo qaranna ma matilo wadani samsama walaashiisi dalka keentay ee u shaqaynaysa sharafta laydina sharaf leh ilaahay ha caafiyo aamiin dhaha walaalayaal holaan bay joogtaa waxa uu qabtay iska daayay waa kan ninkii أنا سوق بنا يمك واحد وقت يسكت ولا شيء العكس يدو بعد أمده كدرة إلى صفير محرر قصير كجوجا إثيوبيا وين أدركي لا كابا قرنية إيش كاش كتوتي والواحد أنت وين وصادق إنه ليش سبابة قصة وين هذا محمدو ما يمقشا إن هذا الركع عيسى وتكون قفته هورانة بروجس كبيحي هذا نتول كيتاي نوانا نتول كي بقبته هذا ما وضني ورد انت بتكون ديانسا معاريه تكون ديانسا تول بيليهين يا كقبسن ما متلان ريرك هورانه waa dhabar weey horta waa ku salaamaya samatra wadiga iyo walaalaha kale ku jira live-ka alaykum asalaam qofka bilaadanki aanu ma jeedo reer ciiso tolkay uma wala jeedinay min baan u jeeday moogtay hadalkayga dhacay xilli damban dhageystay oo fiidiyowga dhacay laakiin tolkay raali baa waa ka raali gelinaya laakiin walaalkayo shalay waad arkaysi waxay lahaa shalay wixii ay lahaayeen waad arkaysi adoo inaad dhageyso lagu socota waan wada ogahay kowde adoo wax ku filan waan khaldamay bes lama doonayo waa lala socdaa qofku haduu waalan yahay lagama daba waasho inaad maxamedow qofku haduu waalan yahay lagama daba waasho qofku haduu khasiis yahay khasiis lama noqdo nin waalan haduu ku shiido miyaad shiidi waa laga oraa ma garani adoo borojas waa ka bixiyo bes inta ba kaaga baahanahay انت ما كاغا باينا هاد ليتك بس واكبخي توكي وكان رالي غلي غلا هذا له بس فريد من رغا ما خدمي وايو رالي بان كان هاي دوشان ما سارنتاي من تولكيا تاي سابا لو بهي وار عيسو ما مقليسان ان هذا روان كدينيا سلامو عيسو ما مقليسان نكستب نكيس سا هاو قبطو نكستب نكيس جيدكا هاو سو دادعيو وكا ان ادركاي waxaan kula hadlo
cimaamadan saaraya tolnimo uguma hiilinayo nin kasta ninkiisa intuu u yeedho waa la caayay in dad imka meeshan ku soo qoraya faarax oo kale waa la caayay daabu kulay haddii la caayay dacayda isaga isku keentay inaad laakiin borojes buu ku bixiyey madaxaan saaranaya qofku ma khaldami waayo waa bili aadan laakiin saaqidiintan qabiilada caayaya waxa ninkan ka keenay habeen la dharar buu caaraha ircaaya maxaa la yiraahdaa mamaasan uu reeraha ciise kala qaadqaada uu yiraahdaa reer maxay baad ka timaadeen dee qof walba marka reeraha caydaan reerahooga caayan sheekhyadooda caydaan annagu waan garanaynay waan dulqaad baan leenahay dabar baan leenahay waan ognahay inaad ninka xanuunsanaya ninka caafimaad qaba wakaa kayeegi anagu waan ka soo raali gelinay ninka dhan ee holland ku nool ee sakhraanka ee noloshiisu jajabsan tahay intuu soo galay ayuu iska dhigayaa nin maxaa la yidhahdaa wax sheegaya waa imise jir ninkaas indigaa inii dhiibay indigaa idiin dhiibay reer jabuutow qabiilkaa doontaan noqda oo waddani 77 haddaan been ka sheegayo oon caayayo waa imise jir anu ninkan gadabursi buu ka soo jeedaa gadabursi ma caayi karaa waa ceeb dee waxaan caayide haddaan sharaf darro iyo idab darro u dhashay haddaan qiimo lahayn waa reer kaste nina caarama dheero reer kasta qiimuu leeyahay nin kastaba khasiis baa ka dhashay saaqid baa ka dhashay gacanta ha la iswada qabsado walaalayaal oo ha la kala xishoodo ninowna nin ha caayin naagayna naag ha caayin waayo dadkani waa dad wada waalan waa dad maxaa la yidhahdaa wada fayoobeyn oo wada sakhaariina waa dadkaad arkaysaan iminka naagta maxay lama tagaysa habboon cumar waa dadkaa wada waalan hadday duq tahay wakaa dushaan saartay maxamedow inaadeer 100% waan kaa qaadanay horoonana waxaan leenahay waa iniga arkaya ka raali ahaada lixda qale ciise ninna nin caarama dheero wax soo raac la yiraahdo ma jiro tolkayow raali ahaada inta dad xaga ku wada jirtana tolkay baad wada tiin haddaad Suudaantiin haddaad Carabtiin haddaad Cafartiin ilma adeereer nin walba nin buu ka dhashay ninkiina khaldan haddaad qabanaysaan qabiil ha u arkina qabiilka waa la isku gartaa ee la iskuma cusuriyeeyo mana naaqoon jabuutina waxa la soo wadaa bariyan in qabiil isku keen diro in la isku keen diro oo la isku keen wada qabiilo wax kale iska daay reerkii ciise la sii kala qaadaya ma waxaan u qaadan karnaa anagu weligii ma ka hadli laakiin hadda waan ka hadlaynaa shariif iyo cid walba jabuuti way joogtaa hadday shariifaan tahay hadday qabiil kasta tahay waa nin walba ninkaaga foolxun farta ku fiiqo waxa tiraahdo annaga nama matilo saaqadkani dhah anuma horona ma ay karaan wadani 77 oo noloshiisu baaba tahay waa baaba wuxuu joogaa 40 sano joogaa Caronton 2006 baan imiday 15 sano aan joogaa alxamdulillah qofku ilaahay ma duleeyo isaga is duleeya ninkaasi habeen iyo daraar anu caaya wax kale iguma caayo waan daafi inuu waalan yahay nuga nin waalani hadduu nishido walaalayaal miyaad shiidi dee waa laga ordaa dadka bini'aadanka ilaahay inta xanuunsanaysa uu badiyey laakiin Soomaalidu ma taqaano xanuunku 150 nooc buu leeyahay ninkii oo dharka sita oo meedhanaya oo wax walba qaba ayay wax ka siiyiin inta fayoobi way kooban tahay inta fayoobi ilaahay wuxuu u koobaan nin sheegay hadday dadku wada fayoobaadaan waa la isla waalanayaa dee ilaan qofkan uu waalan yahay qof ka fayoob uu dul qaadanayo oo iskaga carari ma garan markaa walaalayaal ha loo dul qaato waxaan doonay barnaamijkan doonay inaan ka hadlana waan ka hadlayaa iisoo wada dhawaada anu wadankayga iyo dalkayga anu hiilinaya qabiilna ma rabo qabiil qaran ma noqdo anaa ina bari nimanka qabiilku wuxuu gaarsiiyey inay jabuuti caayaan faahiya ka mid a isugu ilmaad Ibrahim baa soo qabanay waa ceeb weey wadani 77 walaashiisii dhulkaa keentay oo u shaqaynaysa shariifada ahayd fariida ahayd ilaa caafiye ayuu dib u baadhaa wax uu qabtay daay shantadaa ka xadi jir tuug السلام عليكم سمتر ما مقلي صح وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا هذا واخو مقلي سمتر وانت السلام مركه ورسا ان سمتر waxaan ku rajeenayaa khayr baan ku rajeenayaa in waxaan ku leeyahay marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele Xaajiga waxaan ku xigsiinayaa marwada koobaad Fadlan Maxamed Xayd securityga in Abdullah Abdi Sawdani xukuumadda Djibouti iyo reer Djibouti oo dhanyihiin صح reer Djibouti kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafadka waa salaamaya صح marka xagan waxaan in hambalyo u dirayaa ninka qarankiisa gartay maxamed xildhibaan leeyahay nin raga noqotay فريد bahay in jazakallah khair waxa weeyaan ragga waxa u fiican ninka qarankiisa garta marka ninkaasi maadaama uu ka bixiyay raaligelin aad baan u salaamayaa geesidaad noqotaan ka leeyahay in laga sii dacalin shaydaanka in laga sii dacalin dadkani waa dad xaasiniina waa dad iska buka waxay doonayaan dadka kale wanaagsan walaalahaaya say caloolnimo kugu galiyaan ay kugu dirqaan ay beel la isku diro qolo qabiil la dhaafo jil la isku diray doonayaan marka waxaan ka leeyahay waxyaalaha kale inaas ka ilaalino weeyaan waa waxyaalo in ka faa'iideystaan dadka xamaanta wada ay rabaan maanta waxaan ku sheegayaa in geeska Afrika inaka Djibouti baa maanta ka nabada
marka waxa la rabaa xaggan in la gubo taasi intii kale soo la gubatay xaggan baa waxa marka ummadda reer Jabuuti waxaan ka leeyahay qolada doona ha noqdo way iska jiraan dadka dhibaatada wada waxaan leeyahay dadkan masiibooyinka iyaga soo qaadanaya baashash kale ee ku daraba dhuumanaya ekroonka dabadiisa ee caayaya qabiilada waxaan ka leeyahay war qabiil cayn male qabiil cayn male dadku waa wala dahab dadkeenii hore waa garanaysaa marka hore laga hadlo ciise wala ciise dhinaca rama dheeralay qodobka waxa la dhigay marka waxaan leeyahay intan dambe waa ciise suwaal buu xidhay hadda diintu ka baxaan baa hada sababtoo ah ugaasku wuxuu ahaa aabaha beesha ciise wuxuu ahaa kalma lagu soo daro aabaha magaca Soomaali wax sheegtooda iyo aabba ka ahaa marka Soomaalida taas qabsadaan isaga isku leeyahay jira Allah yarhamu ugaaskii hore ugaas Xasan marka dadku waxaan ka leeyahay qadamina ayaloomina waqtiga joogtay in waalid waxa weeyaan ugaasku xeer buleeyahay marka waxaan leeyahay ugaasku xagga isaga noo joogo waa aabihii ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan beesha ciise isaga waxaan ka raali gelin ma siinayna aabbo isaga raali noqon khalaadna dadka kale aan sheegaya qofka hadduu ciise noqdo waxa laga rabaa in uu ilaaliyo midnimada ciisaha haddii uu reer Jabuuti yahayna waxa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada reer Jabuuti sababtoo ah waxa danta ku jirto nabad ku jirto diinteena islaamka nafaraysa talabaad waxa uu macnaheeyaa dadka horta qabyaaladu maxay tahay ma soo weydiiseen waa qurun qabyaaladu waa qarmuun dawoo male ka yimaadeen inay horta gartaan dadkan waa jaahiliyad dadkan waxa ka yimaadeen aadan baa laga yimid aadan iyo xaawana dhalay dadka oo dhan wasku qolo dhaanta ma jirtaa qolo ka sareysa ma jirtaa qoleeyahay sababta waxa weeyaan isku qolo aadan baa laga waleeyay wala aadan baa laga waleeyay waxaan wax isku gartoone aadan baa laga waleeyay marka waxa weey dadku ismeeyay ba ka dhigantay ilaahay baa simeeyba maxaa muslimiin ku nahay qofka qolo sheegta ee qolada wax xun yiraahda ama waxa uu sheegay inuu diinta islaamka ka baxay uu dib ah shahaadada qabsado sababtoo ah ilaahay quraanka kuma qorin qolada caabuda ilaahay wuxuu yiri aadanku way simeeyeen buu la karamna bil aadan buu ilaahay ibn aadan buu ilaahay loo muuqan reehbel ba karamna muuqan marka waxaan u sheegay ummadda muslimiinta ah hadda diinta haysatiin oo muslimiinta yihiin oo dad ilaahay garanaya tihiin qabyaalada xaga naga dhiga qabyaaladii waxay dumisan maahine faa'iido ma keento waa lugooyo waa khasaaro waa xanuunka u daran weeyaan qabyaalada waxa keenaa u sheegay Afrikadan dhagaxaanta noqday waxaan u sheegayaa qabyaalada waxa loo keenay qabyaalada waxa lagu bedelay anaan ii sheegay ma fahamtiniinku waxa lagu bedelay qabyaaladu waa diin gaaladu reer galbeedku noo keeneen diintaas waxay ka dhigan tahay qof uu ku qaato diinta qabyaalada qalbigiisa qabyaalad baa galaysa boqol salaadood hadduu tukado xagga samada ma dhaafaysa qalbiga loogu talagalay inuu ilaahay galo oo diintiisu iimaanku galo qabyaaladii baa gashay xumaan uu ka shaqaynaya ilaahayna wuxuu ugu talagalay dadka muslimiinta marka muslim nahay xagga qabyaalada la dhigayo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka nin madow iyo nin cad iyo nin cas diinta islaamka laga helay miskiidka lagu wada tukadaa ku madow iyo ku cas miskiidka lagu wada tukadaa marka dad taa ka taamila qaataan maxaa miskiidka loo galayaa oo miskiidka ilaahay loo waran waayo qolo miskiidka ugu tukan weydi war hadda qolo miskiidka qolo ku qoro ilaahay baa loo galaan مسجدة مركز ديننا ساس كبحة آخرنا أدوك إسكان وراء آخرنا نار سجد ديننا نود داير دين أود داشين أمد دين المسلمين أود داشين نك استوى وراءك حق أدوك دمغانا سكخلنا ودمغانا يساع وح أدوك بدع تخلينا لج الماها أدوك مجردين حنوستي إبراهيم وكاغو قاية هنا در إنه محلو كورا رمجة يعني كورا كان هنا ساعة وكذا أتجرتي حنوك أولية ماذا حنوك ببعض حوالي حولي ماذا هنا ضيع عندي مثلا ماذا هبي في تريفيك سجلنا عليكم باخذ سلام كاقادي نظرة كاقادي أدي نكاس إبراهيم بوها ما شاء الله قبيلته دوم ماله ولا ليال قبيلته دوم ماله
إبراهيم بوها ما شاء الله جزاك الله خير بان ليهي أرن كان ما دونينا كالله وحي سوق ليهي ماشي إصلاة وذا قيلدون ما نركي لكي وحان سميينا آدي آد بانو تهنيدين يا شرف بو سميي ريركي عيسانا دمانتو عيسى سدو دايما كسو رالي قلنيا نكا ريركي وكافتر صدي أنو نكا سنة نكي سوفيو عرب الحدو عيسى عشديو برقو انت سوقفتان هاي رادان دريرات عيسى داي أفر إلا تكا سعودات عبد الرحمن علي عاي ممتلان النادر وحين أمتلين نما sheekh iyo sheeganaya oo shawaadiina ayaa ciise isku diray kana kamid ah waxa meelkiisi imka sokaama hadal qaadin waxa sheekha sheeganaya kitaab baan haystaale sheekhu ma yaqaanay shaydaankan ilaahay umada ka fariisiyay ilaahay ma habeen madow ilaahay qofka dadka dhiba waa ka fariisiyaa waxaan meelkiisi waxaan xayawaanka ah ayaa reeraha isku diray ciise dhulkii uu ku dhashay dardhaba kama sheekeeyo yoonis musaatiin waa caruur yar buu ugu sheekaynaya yoonis musaatiin yoonis musa waa ciise ما سمع عيسى هرانا وعيسى وروحني وحن إلهي ما كان نجا قبتي وحيالها وجوه الرياء بلابي وحني هاين حيوانات ذوي أنا نكستنا فرتكوا في قيا ننا قدركوا عاي مايو ننا محل هذا قبيلتكوا عاي مايو أنا نك عاشر صار نك عمك بشيء إيش عرضك تفر سو مشيء نك عاشر عبد الرحمن بشير بوحو مثلا إيش صار بو مثلا صار مركب مثلا هذا على راني يونس مسوجي هل يسعشدو عيسو أرما بدل ما قال لنا قبيلتنا نقول صوّده الصومالي نقول بيا إثيوبيا وتا إثيوبيا ما تكلت تكتي إثيوبيا وتا كلا صعطة قبيلة دو كلا صعطة يفيد مط سجى إذا فعل السراد ساقفصو وكاجو أنا مالينا وكاجو إدو كاجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدو السلام عليكم سمت المحجامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيسو دو إدو معاه إدو واكو السلامي أدقى إيه بلشدة ميشا كجل تبواني ودا السلامي صح سلامة إطلاقا نقول السلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه البعض دون يينا كديب تدو وحاوي يورتا محمد عمر ورتا ومادسيهي قفكو او خلطما بالآدم خلطك كسو نقوم باحونا نيكا رقي خلطك كسو نقضا هدو خلطكي سقاطين ورتو كمادسن ياهي مفريد وتولكي وبوكو قفي ميل دير متاقي تولكي هدو رالي هذا يدينا واوح فيها صح قبيالة دير بي مالي مغلا يا قبيالة نورتا يدا ميل لغو مقارو قبيالة وحي دمي سمو يانا وحي هقاجي سهورة بلوما أرد صح إنكو ريجي بوتي هدان ناينا قرم باناي قرن كنا قبيالة ما باهنو كما عارضكي نين تلكي كرسي ما ساري كرو كما حافظ كينا نيكا تلكي كرسي كما هاي كرو وحا ودا قبنا يواري جبوتي اسكو دوبان عدي دونان بها هذا جبوتي وحي كسو جدي ري جبوتي اسكو دوبان با وحنا ساري كرا وحنا ردي كرا مرحبا صح عبد الرحمن عيلينا عيدا وحا ويركين ايوا حلكا لكن حلك الريركو وما بيبني طلقيو هل حشو ريرك اسكدا يا ملين هاي وايو قفوا بو خبير بو يلنا يا نكي حلك قبتي اسماعيل دبدينا حلك والله قبل ونينو با قبل ده كان مقولدي سو بالعاي طريقه هاي نو فلنا ريرك عبد الرحمن علينا معارض دولي محافظ دولي هاي لكن هدو معارض نقدنا ما بآمنيسين معارض هو تركي لكن ما آمنتين ميل بتكون ريحدين وانا نلمد واحنا نمديرو nin walba siduu wax u tabanay waa u tawdaa nin walba siduu been ugu sheegtana waa loo sheegtay isku mid un baa leeyahay صح marora dilaacna way tahay ciise oo halkaa isku soo fadhiyo isku kala tirinayo horta mid jeceliyaa mid anahay waa necbahay baasha ciise inuu isku tiriyo waa necbahay wiil iyo gabadhba edo ciise ma dhano meel ciise u dhaya mooysa waa islaan dhimatay rag dhintay oo makhaanida wixii dhintay ee noloshoodu baaba ahayd ee qurbaha ku noolaa iyo kuwii dirib ciyaalka darbiyada jiisanay Djibouti xeebta haday Afrika tahay wixii ali wixii Afrika joogay Ethiopia joogay ayaad la dhigaysanayaan waar dadka waanu iftiiminayna anagu eedo ciise waxan ma wado afar qurun baa wada ilaahay naga qabta aamin dah ilaahay naga qabta qarmoon kana intaan waa walaalaheen baan xaq Allah na wada garansiyo keena qaldana ilaahay xaq garansiyo xaq tuso aamin waxana wax meel lagu kala tagaya ma waa siyaasad raquraasi u qooqay day ayagu siday u kala qaadanayaan mowqif fiican iyo hadaf fiican iyo barnaamij wanaagsan isku yimaadeen
cay laakiin waxbeeday ma qabato waxaana col dadku maahina dee kursigan inuu dadka colaadiyo ciisaha ma jeceli si qurux badan baa lagu kala qaataa caalamkuba waa dimuqraasiyo waa macaarad iyo maxaafid buu leeyahay صح innaguna inaan kuwa uu ka mid ahaano si karaama leh kaagana sheeg kan kalena wuxuu qabtay madaxweynihiisu inuu halkaa ka sheego kan macaaradka u hadlayina waxa aad qabanaysiin un inaad sheegtiin iyo waxaad waddanka u taraysiin iyo waxaad soo kordhinaysiin sheekadu waa intaa un laakiin caydan la is-eryanayo siyaasad maaha waxani waa xamaasad war xamaasadaana cadaawad baa ku jirta ciisowna cadow badan baad leedihiin hareerihiinu uu wada gubanayaa baan leeyahay anugu war ciisow sida si isku dhaama oo dhagxumada iska daaya oo ubaaskiin iyo uqaashiin iyo madaxdiina karaamada ka dilina inaguna magacii aabihiin dhulka ku ridina ciisana ino ciisa marka nin walba qolxad ku qaadanayay maantana heerka inay dad sameeyaan bay doonayaan inta yada xubna allah noo soo wada hadeeyo امين 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 ilaahay noo soo hadeeyo dooy qarankeennana allah inoo adkeeyo Amiin. cayduna ma fiicino ninka yare aaran la yidhaahdo horta wax laga xaqaataba maaha Ma xanuunsanayo. sawirkeeda wadwadaa dhagax baa guursan kan baa guursan aaran isba naag cad buu qabayuu ka yimiday صح hablahana inaan la caayo habluhu waa caleemadaad wad صح ودنتين هذا allama lay maqlaa waa samada lagu maqlayaa si fiican baa lagu maqlayaa ku soco marka qabiilka la iska daayo wixii kale aad odhan kartiin waddankaaga horta halkan aan joogno samataro halkan aan joogno qofka waddaniga hore waddanigu kasaswaaysa afar wuxuu dan qofka waddaniga iyo priority la siiya marka dadka kale waa saygoon صح aslan ba qofka waddaniga isaa inay dadeen u hadashay hay'adda way cadhootay oo qofka hadduu cadhoodo dhib male waa laga raali gelin dadka shaydaan baa wada warkiisa ها قف واحد waxa weeyaan seedoy qabiilka naga daayo qofka xun qabiil male qofka xun tilmaamo laakiin qabiilka waa of buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabiilka of buu yiri wallahi qabiilku ma fiicno isaaqna ilaahay baa isaaq ka dhigay arka laab saalax isaaq waa macay laab saalax waa nin inuu wasiir wuxuu doonayaa inuu noqdo xildhibaan Soomaaliland ka noqdo doonaya marka daliisu Djibouti u yimid laakiin qabiildan lagu caayo ها ودنت طبعا نقبح ان شاء الله السلام عليكم جزاك الله خير جزاك الله خير يدو نولو إلهي جزاك الله خير آمين وكا سدا dadka bili aadanka saa walaalayaa walaalayaa aanu qabiil ma caayi karo bal ninka ila dhageysta faahiye ila dhageysteen ma dareen iniga ni dhibi lagu soo qaatay oo bishii qaadanayo intuu sanadka qaadan umada reer intuu dhaw way ogtahay way Djibouti haddaan soo koobno koox waxa ka dhisan 12 Soomaali haddaan soo koobnaba ma aan idin dalin ma inaadan inaga dhageysan doonay laba erey baan u dirayaa faahiyo dhageyso Djibouti ma dalin kuma dalin maxaa la raadayay nasabad kuma lihid wuxuu yiri reer Djibouti buu yiri shalay xalay toole fanaaniintooda markaan xasuusto fanaaniintooda markaan xasuusto waan cadhoodaa sibiya noqmaan inaad cadhootidii baaska calool xumaa ku hayso ciil baa ku haya oo dalkanu ma dhalano hadda waxaad la cadhoonayso nabadooda iyo sharaftooda iyo ciisadooda iyo dawladnimadooda aad qoori laadahay dadka reer Djibouti baa tiri waxay ku faanaan inay ilbax yihiin oo diraca iyo macaawistay moodeen ilbaxnimada ilbax waa noo ilbaxnimo waa waxaan adiga baasaboorka kugu siinay aan kugu cusuriyeen weynay aan dadka kaaga dhignay jarmalka waxaad ku timiday baasaboorkayga baad ku timiday qabiil ma lihin anagu magaalada Booramaad ku dhalatay saan maqlay war qabiilkii doona magaalada Boorama hadda ganaado dadkeeni Soomaaliya oo dhan ma kala reebayo anagu Djibouti qabiil ma lihin haday gada bursi tahay haday saaq tahay haday carab tahay dad wada walaalo oo ehela oo kala guursada oo isku qareena oo isku nasabaana adigu dadkeeni magaalada Boorama baanbad ma leh aaw dhulkaaga aaw dadkaaga wasiirada aad ka sheekeynaysid faayi wasiiradeeda waa la yaqaanaa dadkayga waa la yaqaanaa qarankayga waa la yaqaanaa adigu dadkeeni aaw wasiiradiini aaw qarankeeni calool xumaa ku hayso oo dalkan baad neceb tahay dadkanna waad neceb tahay dadka reer Djibouti inay xadaarad leeyihiin ay ilbaxnimo leeyihiin waa waxay baasaboorka kugu siiyeen haddayna ilbaxnimo lahayn xadaarad lahayn adigoo kaleba baasaboorku may siiyeen sida aniga ii siiyeen gaaladan la joogo iyo sida kuwan aad la joogtida Jarmalku deganaashaha ku siiyeen ayaa loo siiyay ninkan waa reer Djibouti anu qabiil uu yahay Samaroon way Samaroon macay kara ana sabxumo way anagu qabiil ma nihin isaga xun laakiin anu Samaroon ma xumo sida uu ogaada nin walba ninka xun caaya wariyada ana runta idii sheegi marka faahiye qabiilkan iyo waxaan aad ka sheekeynayso anagu ma naqaano haddaan nahay dad ilbaxnimada waa waxaan baasaboorka ugu siinay qaran baan nahay qabiil ma nihin anagu orado
soomaalida aawi kuwii kula dhashay adu boor maad ka timiday shoofi micdheer wallahi dirxiga lagu cunaa caruurta yaryar soo sawirayso ee xadiidada dul fadhiya ee leedahay reer Jabuuti waa ka ubadkiini waa ubadka reer Jabuuti 7 jirkooda dariiqa ma seexdo aabaha wasi استغفر الله سبحانه ما بين العيمان دوني إلى النصب السوق بالعدة وكاقبنا سوق سعاد ما صاقبنا طريقة ما سيحضر فاهي وحما قول شيئا كويني رقيني صوماليا والله قاربا سيدا الناقاها اللو تغي أنا معايا هذا أو عرب أو ليبيا رقي صومالي ذا قاربا اللو تغي قرن كيني سوء عشدا أنا قرن بانيم حنا قرن نقوم يا رسانة حاسدية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سعيد. إيه واقو السلام يا دي شو وانا يسا. صح. صومالي عرب عنفر انت رير جبوتية بقيسني. صح. وأنا كنا هاي هرت فاهية عقدت بهايسا. عقدت بهايسا. عقدت بهايسا هو victim هو victim. صح. عقدتي وكسو تهريبي وكالديسو سو عبي من كالديسو سو عبي تايرو wax ka sheegay Djibouti waa weeyaan dad weeyaan waaya kaalada waxa iyo xasuusanaya saxaraha wala lagu soo cabsi san naagaha loo tagaa ragga idu sida naagaha ayaa wallahi loo tagay ragga Soomaalida anagu ma caayinay deeyaaka isku wac markaas tahriibkii waxa xasuusanaya caqdada waxa uu keentay Djibouti markuu joogayna de nuur madoow ka shaqeynay meel kale kama shaqeey hay nuur madoow harikoo ku digdigay way jarmalka wuxuu ku yimiday ya allah greega meel turkiga balaayo dhan buu ku soo maray tahriib صح agaratay صح marka inuu caayo waa waajib oo dawaa kan diladii iyo ku dhashay iyo dhagagoodii uu ka yimiday uu wuxuu miisay waa ka raystay ninkaas waa maana dila iyo dhagago labadaba waa dhuxushu ka miisay marka isagu waxa weeyaan inta dulmanayaasha la yiraahdo dulmanayaasha isaga iyo fahmiye waa dulmanayaal waa victim waa laba nin oo victim ah صح fahmi dibiga ay macasha weyn la sheegay صح haddii Djibouti ay wax dilayso wax baabiinayso ragaad ay habeenay dharaan ka laalaadi caruurtaada la deebiya la yaaldiya wax loo geysan la banaagtaan sida Soomaaliya ka dhacday amba maxay heedaanay wadanka jaarkeena ka dhacda صح laakiin annagu maatida ma taabsanatay adigoo ayaa loo taabsani maatida adigoo ducafaayo daciif oo macashu intaa ku leegtahay oo hilibka doofaarka dhabarka saartay صح oo xamaal doofaara